Sheekada labaatanaad Masaafurintii iyo soo laabashadii. Boqortooyadii Israa'iil iyo boqortooyadii Yahuudiya labaduba dembi weyn ayay Ilaahay ka galeen. Waxay jebiyeen axdigii Ilaahay uu kula galay buurta Siinaay. Ilaahay wuxuu u soo diray nebiyaal si ay ugu digaan iyo inay toobad keenaan oo Ilaahay keliya ay caabudaan. Laakiin way maqli waayeen, xaqana way iska dhaga tireen. Kadib Ilaahay wuu ciqaabay labadii boqortooyo isagoo ku salliday in cadowyaashoodii ka adkaadaan oo baabi'iyaan. Boqortooyadii Israa'iil waxaa lagu salliday boqortooyadii Ashuur oo aad u weyneyd, cadowna ku ahayd iyaga. Waxay laayeen dad badan oo Israa'iiliyiin ah, waxayna qaateen wixii hanti ahaa oo ay lahaayeen, waxayna gubeen inta ugu badan waddankoodii. Ashuuriyiintii waxay soo ururiyeen dhammaan hogaamiyaashoodii, dadkii lacagta haystay iyo kuwii khibradda lahaa ee boqortooyada Israa'iil, waxayna geeyeen waddankoodii, waxayna halkaas kaga tageen oo keliya kuwii faqiiriinta ahaa. Ashuuriyiintii waxay waddankii ku beereen dad ajaanib ah. Kadib ajaanibtii ayaa dhistay magaalooyinkii burburay, waxayna guursadeen dadkii reer Israa'iil ee halkaas ku haray. Kadib way tarmeen, waxaana farcankoodii loogu yeeri jiray reer Samaariya. Dadkii ku noolaa boqortooyadii Yahuudiya waxay arkeen sida Ilaahay u ciqaabay boqortooyadii Israa'iil iyo sida ay Ilaahay u aamini waayeen oo ay u adeeci waayeen. Laakiin way ku tusaale qaadan waayeen oo weli waxay u cibaadaysanayeen asnaamta iyo ilaahyada Kancaaniyiinta. Ilaahay wuxuu u soo diray nebiyaal si ay ugu digaan, laakiin way iska dhaga tireen warka nebiyadii loo soo diray. Ilaa 100 sano kadib, markay Ashuuriyiintii burburiyeen reer Israa'iil, Ilaahay wuxuu u soo diray Nebukadnesar oo ahaa boqorkii Baabilooniyiinta si uu u weeraro boqortooyada Yahuudiya. Baabiloontu waxay ahaayeen boqortooyo aad u awood badan. Boqorkii Yahuudiya ayaa la heshiiyey boqorkii Baabiloon, wuxuuna kula heshiiyey inuu u adeegi doono isaga iyo inuu bixin doono sanadkiiba lacag badan. Laakiin dhowr sano kadib, boqorkii Yahuudiya wuxuu ka soo horjeestay Baabilooniyiintii. Kadibna Baabilooniyiintii way ku soo laabteen oo way soo weerareen. Waxay qabsadeen magaaladii Yeruusalaam oo waxay burburiyeen macbuudkii, waxayna qaateen wixii hanti ahaa oo dhan. Si boqorka Yahuudda ee khilaafay iyaga ay u ciqaabaan, waxay hortiisa ku dileen wiilashiisii. Kadibna isaga ayay indhaha ka rideen, waxayna u wateen xabsi ku yaalla Baabiloon si uu xabsigaasi ugu dhinto. Nebukadnesar iyo ciidankiisii waxay soo wateen dadkii reer Yahuudiya oo dhan, waxayna keeneen Baabiloon. Halkaas waxay uga soo tageen oo keliya dadkii masaakiinta ahaa si ay beeraha u fashaan. Waqtigan, markay dadkii ku noolaan waayeen dhulkii loo ballan qaaday, waxaa loogu yeeray masaafurintii. Ku dhowaad 70 sano kadib, Kuros oo ahaa boqorkii Faris ayaa iska difaacay Baabiloon. Boqortooyada Farisna waxay la wareegtay awooddii halka ay ka ahaan jirtay boqortooyada Baabiloon. Israa'iiliyiinta xilligan waxaa loogu yeerayay Yahuud, inta ugu badanna waxay ku noolaayeen Baabiloon. In yar mooye oo gabowday oo Yahuud ah ayaa ku haray dhulkii Yahuudiya. Wax yar kadib, markii Kuros uu awoodda qabsaday, wuxuu amar ku baxshay in qofkii Yahuud ah ee raba inuu Yahuudiya ku laabto uu ku laaban karo. Xitaa wuxuu siiyey lacag ay dib ugu dhistaan macbuudkii la burburiyey. Markii ay 70 sano ku jireen masaafuriska, ayaa in yar oo Yahuudi ku laabatay caasimadda Yeruusalaam.
markay dadkii yimaadeen Yeruusalaam waxay dib u dhiseen macbuudkii iyo derbiyadii magaalada. Inkastoo ay dad kale maamulayeen magaalada, haddana waxay weli ku dhex noolaayeen dhulkii loo ballan qaaday, waxayna ku cibaadaysanayeen macbuudka Ilaahay.